السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا شارب الشو دمانتين ديكو عفمات قبي أنا عفمات قمنا أيضا الوكالة بحي سيدا وجدا بدرشة المراكن كان وكسر بحي مدحوين جو بايدن وكسر على حسبك ديمقراطية هل كاسنا أفكا عيد اللو دري مدحوينه مراكن كا مستر دونالد جي ترامب قوشاسي أوكوهلي تضواتن إيو 4 مليون أو قف أي عودك السيين حاجة درشة المراكن كمركي الحسابيين إرجدا وكهلي لما بقول إيه تضباطن إيه سجال إرجو أو جودهان ذلك المراكن كوحلو يقانو electoral college كا هذا بس Soomaali ده كنا ذلك المراكن كا إيه شعبوينها أدونك أو دان قارضوا بيكسو جيران أيه أدو حيجو فرحين درشة للدورتي مدحوينها عصب ذلك كاسي المراكن كا بريسيدنتي جوي بايدن ayaa nin khibrad badan oo dalka Mareykanka u soo shaqeeyay muddo 47 sano ah oo siyaasadda ku soo dhex jiray kana soo shaqeynayay hadda ka hor asagoo raba inuu madaxweynimo u tartamo Joe Biden ayaa waxa geeriyooday xaaskiisii iyo laba caruur oo uu dhalay oo shil baabuur ku geeriyooday halkaas buu uga haray doorashadii xilligaasi asagoo da'yar inta kadib wuxuu ahaa senator magaalada Delaware ka soo baxa oo uu ahaa muddo 30 iyo xogaa sana senator kadibna wuxuu noqday madaxweyne ku-xigeenkii madaxweyne Barack Obama muddadii labada taram ahayd ama labada jeer la doortay 8 sano madaxweyne Barack Obama Joe Biden waa nin khibrad u leh xagga siyaasadda akhlaaqdiisu ay fiican tahay kana soo baxay jaamacadaha ugu sareeya ee dalka Mareykanka xagga culunta siyaasadda Joe Biden waxa lagu sheegaa nin aad ula socda siyaasadda adduunka iyo alliance-ka ama dadka ay xulafada yihiin dawladda Mareykanka sida wadamada Europe iyo Asia iyo Afrikaba aad isku wadi kara balse waxa la leeyahay waxay xurguf xoog leh dhex mari doontaa asaga iyo Shiinaha iyo dalkaasi Turkiga Joe Biden doorashadiisa xagga Soomaalida markii la fiiriyo waxa soo dhaweeyay dadka Soomaaliyeed ee dalka Mareykanka eheladooda ku kala maqnaayeen oo rabay inay dib ula midoobaan ama dadka qaxootiga sugayay in dalka Mareykanka dib lagu qaado halkaasi oo uu hakad galiyay maamulkii madaxweyne Trump oo diiday cid ka socota wadamada muslimiinta ama qaxooti ah inay soo galaan dalkaasi Mareykanka haddaba maruu ka hadlayay madaxweyne Joe Biden madaxweynaha cusub ee la doortay isnaashaha dadkiisa wuxuu yiri sida soo socota ee ila dhageyso their ethnicity, their faith, their identity, or their disability. Folks, America has always been shaped by inflection points, by moments in time where we've made hard decisions about who we are and what we want to be. Lincoln in 1860, coming to save the Union. FDR in 1932, promising a beleaguered country a new deal. wuxuu madaxweyne Joe Biden ka hadlay khudbadiisii uu jeediyay xilligii guusha habeen hore in uu soo dhaweynayo dadka Mareykanka oo dhan oo mideynayo cidii dooratay iyo cidii aan dooranba cidii dimuqraasi ah iyo cidii Republican ah ama Jamhuuri ahba wuxuu sheegay dadka Mareykanku inay kala qaybsan yihiin balse asagu uu madaxweyne u yahay shacabka Mareykanka oo dhan wuxuu sheegay in sanadihii laga soo bilaabo 60meeyadii ilaa ay hadartaan Mareykanka ay cunsuriyad ka jirtay balse cunsuriyadaasi ay si tartiib ah u soo dhamaanaysay balse madaxweyne Trump oo cunsuriyadaasi dib u soo cusboonaysiiyay balse haatan hadduu yahay Joe Biden weeye in uu ka shaqeyn doono midnimada dadka iyo dalkaba wuxuu sheegay in madow ama Latin ama cadaan ama Indianiska ama qolo walba oo shucub walba ama Spanish in ay u yahay madaxweyne dalka Mareykanka hore loo socon doono sida uu sheegay shaqooyinkana la fufuri doono oo xisbiga dimuqraasiga asagoo ka socdo oo talada dalka qabtay oo shaqooyinka ka dhigi doono boqolkiiba 99 in dadka Mareykanku
ay shaqo buuxda helaan barwaaqo iyo bashbashna ay ku noolaadaan. Joe Biden ayaa la wareegi doona xukunka 20 bisha January 2021 taasi oo kala wareegi doono madaxweyne Donald J Trump isagoo madaxweyne Donald J Trump uu sheegay in uu maxkamad geyn doono dacwad ku saabsan in musuqmaasuq doorashada ay ka dhacday. sidoo kale madaxweyne Donald J Trump wuxuu sheegay in saxaafadda ay ku goobatay. haddaba xaqiiqda jirta markii la sii fiiriyo oo idaacadaha iyo joornaalada dalka Mareykanka ay falqeynayaan ayaa waxay tahay madaxweyne Trump oo dadka Yuhuudda u sameeyay asxaab fara badan una hiiliyay xilligii uu madaxweynaha ahaa ayay Yuhuudi uga baxeen ballantii waxayna doorteen madaxweyne Joe Biden ayagoo Yuhuuduna ay sheegayaan inaysan ku kalsoonaan karin madaxweyne Trump. haddaba doorasho Yuhuudda oo kala saxaafadda ugu sareysa dalkaasi Mareykanka iyo xagga dhaqaalaha bakaalin sare ugu jirta ayaa si buuxda 100% waxay ugu codeeyeen madaxweyne Joe Biden madaxweynaha cusub ee la doortay talada sugaya inuu la wareego. madaxweyne Trump haatan wixii January ka dambeeya haddii Ilaahay idmo ayuu u hooyanayaa gurigiisa isagoo la sheegayo in uu u furan tahay in uu dib isku soo sharaxi karo madaxweynimada dalka Mareykanka xisbiga jamhuuriga dhexdiisa ama xisbiyada la yiraahdo xisbiyada madaxa bannaan taasoo oo hamigiisa madaxweynuhu ahaa 8 sano xukunka in uu hayo oo uu sheegay waxyaalo badan inay qabyo ka hayeen balse xagga siyaasadda lagu gobtay oo saxaafaduna ay ka helisay dadkii isku haleynayeen ama goboladii jamhuuriga ka soo bixi jireenna ay doorteen madaxweyne Joe Biden ayaa aad loogu riyaaqay caalamka oo dhan lagana soo dhaweeyay xulafadii Mareykanka uu lahaan jirina ay si weyn u soo dhaweeyeen. dhinaca kale markaa aadno Soomaaliya dekada Hobyo ee Galmudug State ayaa shaqadeedii bilaabaysa iyadoo doomihii ugu soo horeeyay ee shixnadaha baabuurta iyo ganacsiga iyo raashinka iyo badeecadaha kala duwan wada ee bagaashka ay ku soo xiran doonaan dekadaasi Hobyo. waxaa la sheegay in dekadaasi Hobyo ganacsato badan ay saamigii ku qaybsadeen ee halkaasi laashashka iyo qalabaadka iyo wishashka lagu dejin lahaa dekada ay soo gaarayaan dhawaan. halkaasi ay noqon doonta il dhaqaaleed u soo hoyin doonta maamulka Galmudug State oo mushaar laga siin doono ciidamada iyo xafiisyada looga shaqeeyo maamulka Galmudugba iyadoo ay lacag fara badan oo malaayiin dollar oo cashuur ah dawladda Galmudug maamul goboleedka Galmudug halkaasi ay uga soo xaroon doonto. Hobyo ayaa waxay ku taallaa meel qurux badan aad iyo aadna uga fiican kalluumaysiga iyo kheyraadka xagga badda sida argoosatada laga dhoofiyo iyo malayga ugu qaalisan Afrika ee laga helo iyo wax walba oo badda ku jira ay Hobyo ka soo baxaan badda gudaheeda loona dhoofiyo caalamka. haddii dekada Hobyo lagu guuleystana badeecooyinka kala duwan ee ka soo galaya ka sokow ay noqon doonto il dhaqaaleed xoog leh oo dadka Galmudug State ee halkaasi ka macaashi doonaan waxa badda ka soo baxa oo ay u dhoofiyaan si nadiif ah iyagoo maraakiibta iyo doomaha waaweyn ee caalamigaaba adduunka ugu suuq geyn doona. madaxweyne Axmed Qorqor iyo maamulkiisu waxay xoog saarayaan sidii dekada Hobyo ay u noqon lahayd dekad caalami ah oo la tartanta dekadaha kale sida Boosaaso iyo Kismaayo. ganacsatada waaweyn halkaasi ka soo jeedana ay yihiin maalqabeennada ugu maalqabaysan dalka Soomaaliya oo madaxweyne Qorqor iyo maamulkiisa ugu baaqeen inay saami ku yeeshaan oo saamiga ay qaybsadaan dekada si ay horumarka halkaasi u ballaarto iyadoo halkaasi alaabaha kala duwan iyo shixnadaha ka soo degayana loo iibgeyn doono ilaa iyo soonka shanaad ee kilka shanaad ee dalka Itoobiya. waxay noqon doontaa il dhaqaaleed weyn oo halkaasi shaqo abuur badanna dadka Galmudug State uga samaysa. caawa intaasuu ku dhan yahay barnaamijkii Shaariba Show. insha Allah mar walba la socda haddaad ku cusub tahayna subscribe ka saaro si aad mar walba aad nala socotid in allaale iyo intii subscribe ka Shaariba Show u saartana waxaan leenahay waad mahadsantihiin waana noo imaamantihiin. wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.